bismillaah ujeeddu xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 2 2018 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane gaashaanle sare xooga cabdinaasir xoosh maxamed 54 jir ah ina faadumo cabdulaahi maxamuud ku dhashay xamar oo ahaa taliyaha raxanta doomaha ee ciidanka badda kaas oo xafiiska xeydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu xabad madaxa uga dhuftay marxuum ekisareeye guuto saciid aadan yuusuf oo ahaa abaanduulihii ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed dembigaas oo ka dhacay degmada xamar jajab gudaha dekedda muqdisho 18kii bishii koowaad 2018 dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeydhaalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneed aayadda 178 suuratul baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane gaashaanle sare xooga cabdinaasir xoosh maxamed uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in xabad uu ka riday bastooladii uu watay ay wajiga kaga dhacday marxuum saciid aadan yuusuf saciid mariino maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga cabdinaasir xoosh maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna uu eedaysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qoraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeydhaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanle sare cabdinaasir xoosh maxamed uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah 1 waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare 2 waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekisareeye guuto saciid aadan yuusuf saciid mariino ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiiq